walaga gudbe gumaysi walaga gudbe angalno geesiyalkiyo halkani waa deegaanka Nuurdugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Axmed Aadan Cali oo ku sugan deegaankan ayaa halkaasi kula hadlay ciidanka difaaca deegaanka oo loo diyaariyay inay qayb ka noqdaan dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta argagixisada. taliyaha ayaa ciidanka deegaanka kula dardaarmay inay mideeyaan quwadooda si ay uga guuleystaan kooxdan khawaarijta. waxaa lagu jiraa jihad ka dhan khawaarijta al-shabaab dalkanaga wada ogtiin iyo dadkeena dhibaatada haysato diintii ku xadgudbeen dadkeenaga ilaayeen dalkanaga xoog ku haystaan oo dadkay baad ka qaadayaan waxaan ilaahay raali ka inuu dhanay sameynayaan dhalinyarada ama odayaasha wadaniyiinta ee dadkeena iyo dalkeena maanta u soo kacay oo la doonayo inay cadowga ka dhiciyaanna adinka waay inta nadaan way sidaa darteed dhalinyaro waa inaad u diyaargarowdaan inaad xoraysaan dhulka abgaal cismaan oo cadowga ka haysto inaad ka xoraysaan inaad u adinkoo midaysan oo kuwaana kabaale iyo kuwaana daawud inta wacaysta dhul laga haystaa midnaana lahayn dadkiisa la leynahayo oo dadkiisa la guumaysanahayo oo walaashiis la kufsanahayo cid kale oo sugahayana aysan jirin hadee hurdo oo ma ekaba jiif iyo hurdo iyo inuu seexdo oo ma banaana hadeer waana hurdada ka tagno waana fadhiisan waana habeenay maalin soconno meel kastoo joogaan waa taqaanaan hawdkan waa kala taqaanaan meel kastoo joogana uu gashaan marna nimankan khawaarijta ayagoo khawaarij oo ilaahayna ka fogaaday ummadiisana ka fogaaday ummadda dhibaataynayo ayay waxay ka kooban yihiin intay Soomaaliya dhan soo arursadeen oo ajaanib keensadeen meesha waxa ku dhimanaya Oromo ku dhimanaysa Oromo waddanka ma wax ku leedahay dardargelinta hawlgallada ka dhanka kooxda khawaarijta ayaa ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah dalkeena taas oo ujeedku yahay sidii kooxdan gobolkeedu dhacay xiidada lagu siibi lahaa. Shilaawo Cabdullaahi Cabdiraxmaan warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed.